markaynu ka hadalno muhiimadda guud ahaan ama ay sharaxayso civil society waxa weeye in dad is urursaday oo aan dawlad taageero ka helayn inay iyagu is abaabulaan bulshadooda wax u qabtaan meelaha baahiyada gaarka ah iyo mataqaan xaaladaha marka taagan iyo mataqaan danaha ay leeyihiin intaaba ay ka shaqeeyaan yani wax bulshadu ay ku wada matali karaan ay noqoto muhiimadooda koowaadna waxay tahay hadii la eego bulshada marka laga hadlayo muhiimad weyn bay u leedahay muhiimad waxay u leedahay kow inay bulshada matasho ay ku matasho inay u hadli karto bulshada waxay u baahan tahay iyo baahiyaheeda hadii ay meesha dawladda ka jirtana dawladda laftirkeedu inay indho u noqdaan civil society-gu ururadii bulshada rayidka ah ee deegaankeena ka jiri jiray waqti aan dawladuhu si fiican u soo gaarin kaalintii ay sameeyay lahaayeen ururo badan oo bulshada rayidka ah ayaa magaalada baran horumarkeeda ka soo qayb qaatay waqtiyada jira kamid ahaa ururadii haweenka ee An-Nasr Tawakkal Maakhir noocyadaas oo ka qayb qaatay horumarka deegaanka ururadii xarakaadka islaamiga kamid ahaa ee deegaanka ka jiri jiray waxay lagu soo meelgaaray kamid ah iskuuladii aynu soo dhiganay dadkii ololaha geliyay ee furay deegaanka kan isoo aan waxbarashada ka jirin dadkaas ahaayeen marka eegto ummadaha horumaray sidii akhyaarta iga horeysay ay sheegeen waa ummadaha isku tashigoodu aanu sugin dawladdu inay wax u qabato laakiin se gacanta isqabtada wax badanna wax qabsada waxaan inii sheegayaa barani waxyaalaha ay u baahan tahay oo aan ka daraasayo oo aan cidna weydiinan waxa kamid ah mas'uuliyadda shakhsiga waxa ina ku badan waa laga seexday yaa ka seexday su'aalan isweydiin mid walba hadaa weydiiso su'aasha ah arintaasaa jirtay yaa ka seexday wuxuu eedaynayaa ama dawladda ama wuxuu eedaynayaa wadaadada magaalada ama wuxuu eedaynayaa maxaan ilaahay macallimiinta ama wuxuu eedaynayaa jaamacadaha dadka jooga ama waxbuu eedaynayaa war eedaa intaan wadno waxba qaban mayno waxaan dardaarmayaa in arintaa la dareemo waxyaaba marka inaga khaldan xawayaan qof iyo dawlad iyo wax badan baa dadkii bulshada iska dhaxsan bulshadan inaanay ka hadli karin dhibaato jirta iyaga aaminsan hebel baan isjeerina ama hebel baan isku xumaanay waxa aaminsan yihiin dawladda iyo wax iska khaldan shakhsiga ayaa iska khaldan kaas ka hadli kara marka uu qaaraamida bulshada sidoo kale ururada bulshada waxay sameeyaan waxa la dhaho peacekeeping oo nabadgelyada ka shaqeeyaan kaalintooda ugu muhiimsan waxa weeye ururada bulshada wada ka shaqeeya nabadda in lagu soo dabaalo dadkii mataqaan nabadda looga sheekeeyo waxay kala sameeyaan waxa la dhaho civic education oo waxbarasho madani ah ka leedahay ururada bulshada waa inay ka hadlaan arrimaha doorashada oo dadka ay ku dhiirigeliyaan dawladana kula xisaabtamaan in doorasho xalaal oo xaq la qabto iyaguna ay markaa dadka afkaarahooda soo saaraan marka caawa intaan naasoo markaan wada joogno oo message-geena si uu yahay message cad dawladdeena ay aragto laakiin wixii aan ka seexano dawladdu iyadu qaadada soo qaado afka ku gelmayso qof kasta oo bulshada kamid ah waa inuu istaagaa arrimaha deegaanka arrimaha danta guud iyo dhammaan wax kasta oo aynu danteenu ku jirto marka waxa loo baahan yahay bulshadu in iyadu isku tashato ururada bulshada rayidka oo kale ay qabtaan hawlaha dawladdu ay ka gaabisay sida inta ay soo sheegnay oo kale nabadgelyadii wacyigelinta bilicda degmada oo kale in nadaafadda ka qayb qaataan in ay diraynta ama magaalada bilicdeeda oo kale ka qayb qaataan inay dardargeliyaan waxbarashada oo kale ururada bulshada rayidka ba dardargeliya waxbarashada haddana waynu dadku dhiirigelinayaan dawladda hoose la active garayo si fiican u shaqeyso arrimaha bulshadana la shaqeyso dadka ay waana isu baahan yihiin waxa weeye step by step arrimaha dawladdu waxay u baahan tahay inay xog hesho caqabadaha kow dadku waxay u haystaan arrimaha markay maqlaan ururka bulshada markay maqlaan in qofkii lacag lagu siiyo waxayba ka aaminsan yihiin fikir ah in lacag qofkan ku qaato ururka bulshada iyo dhaqaale xumada iyo dhiirigelinaanta aan ku darayaa fishanka ama yoolka ururka aan cadayn ururka waa ka sameeynaya ururkaas muxuu sameeysan yahay yool ma leeyahay ahdaaf ma leeyahay maxaa rabtaa inaad gaartaan ma jirto waxa ka mid ah mabaadi'da ururka aan cadayn waxaana kamid ah caqabadaha hadii aan ku horeeyo waxa kamid ah in ururadii laftigooda ay isxasdaanba aysan wax isku soo kordhin aysan yaani ururkan waxaan uu qabtay idinkana fikir nooceeya ayaad ku darsan kartaan oo bulshada u horumarin kartaan in bulshadu meelaha ay ka liidato waxa weeye wacyiga bulshada maxay ku wacyigelinayna waxa ugu horeeyo waa dawladnimo iyo kala dambeyn horumar iman maayo hadii aan kala dambeyn dawladnimo la helan